dhacay ayaan qodobkeena koowaad ku dul istaagi doonaa hadduu alla idmo. qodobkeena labaad, maanta axmed madoobe xaalad halisa ayuu ku jiraa. magaalada kismaayo dhexdeeda ciidankii joogay ayaa raadinaya iriday ku baxsan lahaayeen, iyadana waan dul istaagi doonaa. dhanka kaleeto waxaan rabaa iyadana inaan baaqeenii caadiyanka ahaa ee bulshada reer jubbaland aan u diri jiray inaan iyadana aan ku khatimo qodobada muuqaalkeena oo qeybta ugu dambeeya aan baaq ugu diro ciidamada daraawiishta jubbaland, kuwa dadka shacabka ee reer jubbaland, ummadda soomaaliyeed oo dhan inaan baaq ugu diro qeybta ugu dambaysa. soo dhawaada, muuqaalka like saara, aragtidiina noogu reeba qeybta commentiga. xalay waxaan idinla wadaagay inuu ciidan ka baxay magaalada kismaayo. ciidankaas kala barhkoodana aroortii aad arki doontaan iyagoo isdhiibaya. xogtaa magaalada kismaayoan ka helay ciidankaa markay baxeen ayaa laysoo siiye, waxaa la yidhi ciidan baa baxay, laakiin ciidanka intooda badan axmed madoobe ma rabaane waa la khasbayaa, wayna isdhiibi doonaan. haddaba maanta ciidan jahooyin badan ka imaaday ayaa isdhiibay oo ku biiray ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya. ciidankii kismaayo ka baxay qaybtii ugu badnayd oo weliba ciidanka waxaa watay baa layidhi guddoomiyihii degmada badhaadhe axmed madoobe uu u magacaabay 2 maalin ka hor, kadib markii guddoomiyihii badhaadhe uu ku biiray ciidanka dowladda ayaa watay baa layidhi. qaybtoodii ugu badnayd jaf way ka goosteen kuwa dowladda ay raaceen. in yar baa waxaa la yidhi meel jasiirada yaa ku waardiyeynaysa oo isoo gaadha halaysoo gaadho ayuu leeyahay baa layidhi. oo jasiiradda hadduu ka soo baxo kooxdii khawaarijtahayd buu ka cabsanaya oo wuxuu leeyahay halaysoo gaadho oo codsi buu dirsaday. ciidankaa horta waa isdhibeen tiradooda, laakiin intay dhan tahay waqti xaadirkan oo inala hadlayo lama caddaynin, laakiin waad u jeedaan ciidanka sida loo soo dhaweeyey. oo taa iyadu waxaa weeye waa maragmadoon, waa muuqaalada aynala wadaagay qaybo ka mid a. kuwa markaa iyagu way isdhiibeen. dhinacan kaleeto buurgaabo ciidankii joogay iyo maamulkii axmed madoobe ee buurgaabo u xilsaarnaa, degmadan buurgaabo u xilsaarnaa, sideeda iyagoo isla socda oo maamulkii, saraakiishii ciidanka, taliyayaashii, aliflayaashii, adu wixii ciidan ahaa ayagoon qofna ka hadhin, qof hal mid uusan ka hadhin, ayay xalay saaka hiirtii aan dhahne ayay u guureen raaskambooni. halkaas baa lagu soo dhaweeyey, lagaga hortegay, lagu maamuusay. hubkiina iyo wixiina idinka wata ciidankiina dhex gala leeyihin. maxaad naga rabtaan baa layidhi, gorgor iyo harabcad ayaad idinkaba ka mid tihiin. ciidan dowladeed baa tihiin, ciidankii soomaaliyeed baa tihiin, idinka annagana ciidan baa nahay. dee waxa weeye soo dhawaada baa layidhi. halkaasaa lagu soo dhaweeyey. waa maamulkii dhannaaya, waxba kama hadhin. jab siyaasadeed noocii ugu xumaa ayaa horta ku dhacay ninka la yidhahda axmed madoobe. garabkiisaa laga baxay. ciidankan hadda isdhiibay ee waxaa weye buurgaabo qaybo ka mida waxaaba laga soo ururiyey oo laga keenay baa la yidhi meesha le janaac cabdalli iyo buule xaaji iyo cabdilla biroole iyo labadii 3 tuule 13 sano uu ku noqonayay ninka le axmed madoobe, meel kaloo ilaan u xoreeyey ma jireen, ayaaba qaybo laga keenay. qaybtan hadda uu ninkan guddoomiyahan badhaadhe la tega kismaayo kala baxayna sidaasi la mid a waa qaybo la soo ururiyey. toddobaadkii hadda ugu dambeeyey waxaa jiray ciidanka jubbaland ayuu axmed madoobe iskugu yeedhayay, guute hebel in ka soo qaada, guute hebel in ka soo qaada. waa la isku shaashaandhaynaya si markaa looga saaro shakiga ciidanka ku jiro oo ciidan isku dhafa oo ama ciidan markaa aan sheekaysan karin looga dhigo, maadaama ciidanku markay isbartaan oo cabaar wada joogaan qorsho walba ay isla gaari karaan oo ay isxog og yihiin. laakiin markii sidan oo kale ay dhacdo waxaa la sameeyaa waa tacticam adduunka dhan baa isticmaalo. ciidanka waa lagu isku shaandhaynayay. isku shaandhayntii uu lahaa waxbay ka bedeli doontaa qaabo socodka ciidanka iyo jabka siyaasadeed ee ku dhacay way kasii darta uun xaaladdu. waxay ka turjumaysaa marka dhalinyaradan ciidanka ee daraawiishta jubbaland inay isku aragti yihiin oo isku hadaf yihiin. oo maanta midka laga keeno dhoobley iyo midka laga keeno waxa weeye ceelwaq laga keeno inay isku aragti yihiin, isla markaaba isla jaan qaadayaan oo meeshan wax u yaallaba inuusan jirin ayay ka turjumaysaa. ciidanka maanta isdhiibay tira ahaan markii la isku daro waxaa lagu qiyaasayaa 200 inay kor u dhaafayaan. 200 oo askari. shalayna 120 baa isdhiibtay waad ogeydeen. 2000 ku dhawaad baa hadda ciidankii jubbaland tagtay oo kuwa dowladda ku biiray. waa keligii marka duqi axmed ah. hadda waxaa dhiman oo keliya axmed madoobe isa soo dhiibay baan sugaynaa. wax kaloon sugaynaa anugu garan maayo. axmed madoobe
ayaa isa soo dhiibay waana hubaal inuu isa soo dhiibay axmed madoobe oo la qabani hadduuba soo aado dhinaca raaskamboni oo uu yidhaahdo ciidankaan indhaindhayn ama ciidankaan horkici aqliyadidiisana waa macquul inuu yidhaahdo ciidankaan horkici oo waxa weeye raaskamboni baan aadaynaa inuu yidhaahdo jahadaa ciddii soo aado way isdhiibi guddoomiyahan hadda cusubna maalmahay nagu soo aadan isagoo isdhiibay fiiriya wadahadal baa ku socda now wadahadal baa ku socda isagoo isdhiibay baad arki doontaan hawl adag baa horta meesha ka socota dagaalkaas axmed madoobe iyo dowladda federaalkana hadal nimaan run ka sheegin been baa u kaydsane axmed madoobe waa lagaga guulaystay axmed madoobe waa lagaga guulaystay dagaalkan laba nin oo ogaadeen u dhexeeya waan ogahay waa iswalwaali doontaa adoo daarooda waxa u fiirsan maysid dagaalkan laba nin oo ogaadeen u dhexeeya xamsi iyo wuxuu u dhexeeya axmed madoobe waa laba nin oo ilma adeera weliba ogaadeen base maaha laba nin oo ilma adeera weeye waxaa la yidhi meel ay ku dagaalameen dibidu ay ku dagaalameen laba dibi ay ku dagaalameen cawska ku dhamaada soomaaliya ay meeshan ka dhexbaxa waxaan aad daaroodkan weliba daaroodow waxaan aad wadaan aad leedihiin barara ogaadeenka maxaa ku dhacay ogaadeenka duulaanka lagu qaaday ma arkaan miya bajajajaqdaa haysaan adeer meesha waxaa ma yaallo laba nin oo ogaadeena meesha ku dagaalamaya labadaa nin oo ogaadeenka ka dhexbaxa idinku annagu ciddaan la safanayno iyo ciddaan taageerayno iyo ciddaan ku garabsiinayno iyo ciddaan wax ka sheegayno annagaa u xor waa idinku marka naga dhexbaxa labada dibi ee meesha ku dagaalamay ee aan ka hadlayo waa xamse iyo axmed madoobe marka dagaal baa meesha yaalla axmed madoobeana gal daran oo waxa weeye iyadu galdaro markii la yidhaahdo galdaradiisu banaankaasay taallaa sababtoo ah axmed madoobe anagu naga galdaran yahay oo cid walbuu ka galdaran yahay waxaa la yidhi cadowgaada cadowgiisa waa walaalka ama waa ku garab midkaa tidhaahdidba anaga xamse isku aragti maan ahayn laakiin cid walba oo axmed madoobe la dagaalamaysa oo kursigaa ka tuuraysa oon khawaarijta ka ahayn ilaa khawaarijta waa farenisba laakiin oo la dagaalami maayaan oo axmed madoobiyo khawaarijta xidhiid baa ka dhexeeye cid walba oon khawaarijta ka ahayn oo axmed madoobe kursigaa dhaafinaysaan anagu garab oogu nahay cid walba sababtaa wuu dhibay ummadii waxba uma hayo waxba maanta ceebtaasuna maanta na baday isbedel baan jubbaland u rabnaa dhiig cusub baan jubbaland u rabnaa qof horumar gaarsiin karaan jubbaland u rabnaa oo qof hogaamin karaan u rabnaa qof reer jubbaland isku soo celin karaan u rabnaa qof reer jubbaland nabadgelyo dhex dhigi karaan u rabnaa qof reer jubbaland midayn kara bulshada reer jubbaland baan u rabnaa uma rabno ninkaas waxa weeye 13 sano wuxuu hogaaminaya kusoo khatibay maanta in ciidankii daraawiishta jubbaland ay kala cararayaan kusoo khatibay ma doonayno marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan weliba bulshada kale daaroodow naga dhexbaxa annaga axmed madoobe waa fashilmay waa ceeboobay markii horena waxba mausan haynin maanta bulshadaas waxa weeye weliba ogaadeen uu ka dhashay in laga badbaadiyo oo ceebtaa uu meeshana dhigay hogaamin xumadaas aan maanta aan helno qof cusub oo bulshada soomaaliyeed reer jubbaland isku soo celiya oo ceebihii iyo dhibaatadii uu geystay axmed madoobe soo tirtira ayaan u baahannahay taas baan u baahannahay ceebtuu axmed madoobe geystay baan rabnaa inaan tirtirno oon bulshada ka qabanno oo intaa ka badan aysan sii soconin taas baan doonaynaa marka axmed madoobe marka war iyo xaal waa ceeboobay waa fashilmay ciidankii waa kuwa horhorin bay isku dhiibayaan ciidankii daraawiishta tage dhulkii waxa weeye hadda waa qarka u saaraya inay kooxda khawaarijta ay qabsadaan haddaysan ciidanka dowladdu aysan ciidan kaleeta keenin oo aan la soo badinin oo weliba aan dhinacyo badan laga dejinin warar kale hadda waxaan maqlayaa dhowley baa ciidan laga dejine haddii laga dejiyo guul bay noo tahay marka waxaan rabnaa dowladda haddii hadafkeedu uu yahay badbaadinta jubbaland in aan garab ku siinaan rabnaa garab inaan ku siinaan rabnaa runta inii sheeg waxba inaga qarin maayo haddii tahay badbaadinta jubbaland labada kooxood ee khawaarijta iyo khawaarij kalkaalka in laga saarayo hadday noqoto oo dowladda ay arrintaa dhab ka noqoto diyaar baanu nahay axmed madoobe waxba lama joogo isagana wuu isa soo dhiibi doonaa ama jilib buu iska dhiibi ama raaskamboni buu iska dhiibaya labadaa midun bay noqon doontaa hadday sidan ku socoto wey asbuucoon la gaarin buu fashilmay oo waxa weye salka dhulka loogu dhuftay waana fulaya ku darsada axmed madoobe nin dagaalama maaha fulay wey ana aqaana aqoon dheer baan u leeyahay axmed madoobe waa nin fulaya weye nin dagaalama maaha axmed madoobe dhac markay tira rag buu ku adeegtaa cabdinaasir seraar iyo niman buu ku adeegtaa rag buu iskaga adeegtaa marka ninkan waa fulay rag buu isku hadlaynayaa mooyeene isagu waa fulay nin dagaalama maaha maalin dhow cabaadkiisaad maqli doontaan iyo barararardhaq isagoo leh oo meelu ku dhaqaaqaba hadday sidan ku socoto wey shacabka reer jubbaland marka waxaan leeyahay isbeddel ha loo diyaar garoobo
isku caanashubka axmed madoobe waxba kama jiro wax la aqbali kara maaha wax la qaadan kara maaha waxba dan inooma aha waxaas isbedel inuu dhacaan rabnaaye ha loo diyaar garoobo ciidanka daraawiishta jubbaland ee aragtida cusub wata kuwaa ha la taageero wiilasha ha la taageero ciidanka dowladda soomaaliyeed ee haramcad iyo gorgor ha la taageero kuwaas xasanna ma laha xamsana ma leh wiilal soomaaliyeed weeye waa ciidan soomaaliyeed kuwaa ha la taageero kuwaas baa taageera inaga mudan iyagana waxaan leeyahay oo kula dardaarmaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan war bal intaad socotaan idinkana horey u socdo dhulka maqan baraarujiya shacabka baraarujin baa laynaga rabaa waxaan intaad soo taagantihiin aad leedihiin xeryaan la wareegeynaa mar rabna xeryaan la wareegeynaa waxaan rabnaa inaad bulshada u sheegtaan oo tviyada ka hadashaan oo dhahdaan dhulka maqan ee reer jubbaland baan xoreynaynaa inaad dhahdaan baa loo baahayay taas baan inaga rabnaa